wiilkan wuxuu ku nool yahay magaalo la yiraahdo Sundusfal oo ku nool yahay wadanka Sweden ku taala waxaan soo helay xogtiisa adresskiisa soo helay horta waa xaas hadda oo ma aha nin oo guurdoon ma ahan waa xaas ba ninkan laakiin weligay ma sameeyna reaction mana haddana ma rabo inaan reaction sameeyo laakiin dad badan waxay igu raadeen Xudayfa waxaad degantahay Sweden ninkan muxuu yahay ninka waa wacay marka waxaan rabaa inaan codkiisa hadda ay la dhageysato حذيفة جمعة وناكسن سودو adiga saaxiibada jimco wanaagsan ila jaa waa ka muuqata haybadii shaqligii maalinta jimcaha ah meel fog ayaan aniga ugu imid inaan ku jimceysto xaafadan ay Soomaalidu ku badan tahay ee la yiraahdo Rinkeby ilaa 60 kilomitir jacayl aan idin qabo darteed soo marka la ayaan ku leenahay waxa jira adiga iyo saaxiibo badan oo soo kala sameeya aad iyo oo degan nawaaxiga magaalada caasimada oo ah Sweden xaafadan Soomaalidu badan ay degan tahay Rinkeby ku jimceysta taas hadii aan ka tagno بريهان waxaa jiray wiil aan aad uga masayray haye waxaad ku tilmaantay laakiin adiga qowsar ma ka masirta ha haye guursan doona aqaan ayaa tiri haye guursan doona aqaan sax weeyaan marka wiilkaas xogtiisa wax badan waad ka soo xuraastaan rajeynaya sababtoo ah qowsar ayaad ku tilmaantay horta maxaad qowsar ugu tilmaantay horta idaa jaa horta aad iyo aad horta u maasan tahay wiilkaas horta waa wiil fariid ah oo aad cajiib u ah weeyaan horta dadka qaarkood waxaan arkaa commentiyo badan oo la ii soo qoray oo dadku ay leeyihiin maxaa qowsar ugu tilmaamtay maxaa saan u tiri laakiin ereyga macnaha qowsar ayaa dadka ka maqan oo aysan aqoon badan aysan u lahayn qowsar waa ninka xanaaneeya ilaaliya daryeela xoolaha oo runtii waana ammaan qofka marka uu xoolo ilaaliyo fiican u yahay qowsar qof kasta ma noqon karo marka wiilkan Sweden ay ku nool yahay waxa uu sheegay ama uu sheegtay bartiisa YouTube-ka ku sheegtay inuu xoolahan asaga uu leeyahay inuu beertan asaga uu leeyahay inuu hawshan dhan asaga uu leeyahay waliba uu doonayo guurdoon uu yahay isla markaana uu doonayo gabar uu guursado uuna la yahay sidaas daraadeedna uu doonayo in la soo xiriiro qofkii uu ka helana uu xoolo badan uu ka bixin doono marka dalkan Sweden wax walba in dalkan oo kaliya ma ahan dalalkan oo idil xogta qofka waa mid si dhakhsi loo ogaan karo meesha uu ku nool yahay qofka uu yahay waxa uu qabto yani shakhsiyada qofka horta ninkan odaga ah horta waa nin fariida markaan ku leeyahay horta wuxuu koobiyey haddii aad daawato TV fiiraha ama TV-ga afraad ee waddankan Sweden waxaa ka baxa barnaamij la yiraahdo Bonde Soccer Fru oo ah beeraleygu wuxuu doonayaa xaas ayuu doonayaa waa barnaamij caalami ah ama Farmer Seekers a Wife meelo badan oo ka baxaa waa barnaamij runtii barnaamijka horta koobiyey waana wax fiican qofkii inuu wax koobiyo ama aragti uu la yimaado marka taasi kuma dhaliilaayo laakiin arrinta meesha tala waxay tahay wiilkan ma yahay ninka beeraleyga ah ninka beerahan iska leh ninka iska leh maxaa la dhahay xoolahan ma yahay marka wiilkan wuxuu ku nool yahay magaalo la yiraahdo Sundusfal oo ku nool yahay wadanka Sweden ku taala waxaan soo helay xogtiisa adresskiisa soo helay horta waa xaas hadda oo ma aha nin oo guurdoon ma ahan waa xaas ba ninkan laakiin barnaamijkan waa barnaamij horta la wada jilay oo gabdhahana berrina arki doontaa barnaamijkii horena oo ku sheegay berrina waxa imaan doonto waa wada jilnay arrinta barankii ahayd baa xataa waxa dib u fiirisaa barnaamijyo badan oo horay YouTube-ku soo galiyay dib u fiiro barankii kala duwan uu sameeyay uu leeyahay xarka igu dhagay jaad ina cunaan raba Yemen aan ka imaado iyo lacag ma siinaysaa iyo gabdhuhu leeyahay telefoonkaaga ma macnaha barnaamijyo kala duwan horta oo horay uu sameeyay laakiin barnaamijkan dad badan aad u hadalhayeen sababtaas keentay in aan anigu aan ka hadlo weligay ma sameeyna reaction mana haddana ma rabo inaan reaction sameeyo laakiin dad badan waxay igu raadeen Xudayfa waxaad degantahay Sweden ninkan muxuu yahay ninka waa wacay marka waxaan rabaa inaan codkiisa hadda ay la dhageysato السلام عليكم السلام waa ku salaamay walaal marka hore qofkii la hadlaaya Cali Cabdullaahi Aweys oo degan magaalada Sundusfal Soomaha waa ku salaamay waa nin la dhaw Cabdiraxmaan Xudayfi oo wariye ah seetahay fiican wallahi aad iyo aad niyo waxaan rabay programka samaysan rabay inaan su'aal ka weydiiyo adiga Sweden ku nooshahay waa gartay marka programkan yahow dhab moo ka yahay mase dhalanteed wala علم الهلس قف كله
cali adaan kula hadlaya codkaaga waa aqaanaaye waxaan rabaa inaa barnaamijkan sida saxda ah eeg wuxuu leeyahay markaan iri adiga calig ma tahay haddana wuxuu yidhi ma ihi marka waa nin noocaas ah waay marka difaac u galay marka ninkan ani ma rabo in hadda xogtiisa oo inaan hore usii galo laakiin inuusan desfaal degan yahay adreskuu degan yahay waa soo helay guriga xaaska uu qabo way la degan tahay isla adreskay kula jirtaa nin kale oo aan filay inuu etoobiyaan yahay maqal isla adreska kula jiro laakiin si walba ha ahaato adiga ma isleedahay gabdho soomaaliyeed oo xilligan jiro oo qurbaha joogo ayaa xoolo dhaqi doono oo ilaalin doono oo qowsaaro noqon doono oo guriga macnaha noloshaas adag ku noolaan kara ma isleedahay marka laga soo tago horta runnimada sheekadan saad usoo xuraansatay ud raacday usoo ogaatay dad badan waxay iga weydiinayeen ninkan ma hanti kaluu leeyahay oo lo-daan aan ahayn marka waxaan isweydiiyey waxaa la gabdhaha qaar Canada ka yimaadeen gabdhaha qaar waxay ka yimaadeen Mareykanka yani safarkaas dheerka ah beentood waa dhammaantood Sweden wada Sweden gabdhaha wada degan yihiin sheekadan waa sheeko la wada og yahay oo la wada jila waay programkan ayaa laga koobiyey isla markaana si barnaamijka dadka loo soo jiito kaliya ku imaaday macnaha indhaha dadka la soo jiito